الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا ليال هدي الله رالك النقضه وحان وحي رزق حسوسين دونا بيش خير كبدن اي نغسو وجهان الى فيليو مالنتا بري 4 inay kow noqoto ilaahay iidankii waa bisha dilxijja ama bisha ay Soomaalida u taqaano bisha xajka. ilaahay fadligiisa iyo manadiisa waxa kamid ah in adoomadiisa wanaagsan uu u yeelay xilliyo ay badiyaan wanaaga iyo khayrka iyo acmaasha wanaagsan. waxaan mar dhow ka soo baxnay bishii barakaysneed ee Ramadaan ee khayrka iyo wanaaga u saaxiibka ahayd. waxa inoogu xigtay 6 maalmood ee wadaca ay Soomaalida u yaqaaneen ee bishii Ramadaan ku xigtay ee Shawaal. waxaan maanta insha Allah ta'ala wajahaynaa hadii Ilaahay raali ka noqdo maalmo aad u khayr badan isla markaana la doonayo qof kasta oo muslim oo aqli u saaxiiba inuu ka faa'iideysto oo ka qaniimeysto. walaalayaal sidaad ogtihiinba wuxuu suubanaana calayhi salaatu wasalaam sheegay in ay tahay qaniimo in qofka uu ka faa'iideysto xilliga uu firaaqada iyo caafimaadka uu hayo. maalmahaas walaalayaal inagu soo foole ee 10 hore ee bisha dilxijja waxa ku sugnaaday oo ku soo arooray fadligooda adillo fara badan oo kitaabka quraanka iyo sunnada subhanahu calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay. ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ba'da a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim bismillahir rahmanir rahiim wal fajri wa layaalin 'ashr. suuratul fajr weeyaan. ibn kathir rahimahullahu ta'ala wuxuu ku fasiray mufassirkaas weyn waxa loola jeedaa buu yiri المراد بها 10 ذي الحجة. sidaas ayaa loola jeedaa sida ay yiraahdeen ibn Abbas ibn Zubayr iyo Mujahid iyo غير koodba ay ku fasireen mufassiriintii weynaa ee muslimiinta. ilaahay fajrka ayuu ku dhaartay waa ooga salaada iyo 10 maalmood. 10 maalmood ee ilaahay uu ku dhaartay subhanahu wa ta'ala waxa loola jeedaa sida ay mufassiriinta ku fasireen 10 maalin ee u horeysa bishan barakaysan ee dilxijja ayadoo kamid ah ashhurul hurumka. sida ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sheegay inna ciddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum. ibn Abbas radiyallahu anhuma asagi abi Allah ka raal noqday wuxuu yiri qala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam subhanahu wuxuu yiri majra amal la qabto 10 maalmood gudahooda amal la qabto oo ka khayr badan. waxay saxaabada weydiiyeen jihaadka xitaa wuxuu yiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam amal la qabto oo ka fadli badan amalka 10 maalin ee bisha dilxijja u horeysa la qabto malahan. asxaabtii goobta ku sugneed ayaa waxay yiraahdeen walal jihaadu rasuul allah jihaadka xitaa ma ka fadli badan yahay amalkaas la qabanayo 10 maalmood ee u horeysa bisha dilxijja. nabiga wuxuu yiri walal jihaadu illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi shay'in. hatta jihaad la galo kama khayr badno maalmahaas amalka la qabto ayaa ka khayr badan ilaa qof mooye baxay qofkaas oo u bareerayo oo la baxay nafsadiisa iyo maalkiisa isla markaana aan midna kala soo noqon oo meeshii ku shahiiday maalkii uu watayna meesha lagu qaatay. waa xadiis saxiix ah Bukhari ayaa wariyay. jihaadka oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay inuu yahay dirwatul islaam baar kurusaydka islaamka meesha ugu sarreysa inuu yahay. qofka mujaahidkana la sheegay ajarka iyo abaalgudka ilaahay agtiisa uu ku leeyahay inuu aad u weyn yahay ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ka fadli batiyay 10 maalmood ee inagu soo aadan acmaasha wanaagsan ee la qabanayo. ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala wardadii hawxusa ilaahay magaciisa maalmo la tiriyay ee la og yahay wayadkuru isma Allahi fi ayaamin ma'luumaat. waxay ilaahay magaciisa xusayaan maalmo macluumaat oo la og yahay gudahood. ibn Abbas wuxuu ku fasiray iyo ibn Kathir ay yaani ayaamul 10 weeyaan waa xaaloola jeedaa ayay dhaheen 10 maalmood ee bishan inagu soo wajahanay dilxijja ugu horeeyay. ibn Umar radiyallahu anhuma asaga iyo abihi Allah ka ranooday Abdullah ibn Umar musirki weyna wuxuu yiri qala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay wuxuu yiri ma min ayaamin a'zamu 'inda Allahi subhanahu majran maalmo ilaahay agtiisa kaga weyn wala ahabba ilayhi agtiisana lagu kalgacayl badan yahay al-amalu fiihinna amal la qabta dhaxdooda min hadhihi al-ayaam al-10 oo ka ahaaday 10 maalmood ee bisha dilxijja ee dadihu fa akthiru badiya fiihinna dhaxdooda min at-tahliili wat-takbiiri wat-tahmiidi Allahu akbarta iyo tahmiida iyo alla weynaynta badiya
رواه الطبراني في المعجم الكبير بكوريه وليهي هدان ديب ugu noqono isdul taagno ibn umar nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ka wariyay wuxuu yiri ma jiro ilaahay agtiisa maalmo ka weyn isla markaana ilaahay agtiisa looga kalgacayl ama jacayl badan yahay amal la qabta dhaxdooda oo ahaaday 10 maalmood moogi yaani maalmo kale oo ilaahay agtiisa looga jacayl badan yahay ama ilaahay agtiisa ka weyn ma jiraan eedadii hawbadiya dhaxdooda alla u dhawaanshiyaha la ilaaha illa allah الله أكبر والحمد لله وحوها سعيد بن جبير رحمه الله تعالى صحابي تابعي جليل كها مركي سو غشو طبعا هوره بشن وحوها مد اد ودداله كاس او ددالك او سمينيا انا waxba la barbardhigi jirin ibn hajar wuxuu yiri fath wuxuu ku yiri oo uu ku sheegay wuxuu yiri waxa sababayo inay ka muuqdaan oo ay ka socnaadaan 10 maalmood maalmaha kale waa weynida ay weyn yihiin darteed taas oo ay kulansatay cibaado aad u waaweyn waxa kamid ah salaadii iyo صيامكي يا صدقتي يا حجكي او كميده ركن من اركان الاسلام الخمسه وحوليها ولا ياتي ذلك في غيره من ايمانيو ارنكاس يعني بالكله وايو بشا ايدو بليه كله صلادي ولا وداغان waxa ku jira soonkii oo inoo maan doonta yoma arafa dadka aan joogin xajka waxa ku jira muusim al-kabeer wa muusim al-hajj weeyaan maalmahan maxaanu looga baahan yahay marka walaalayaal waxaanu looga baahan yahay inaan u degdegno gudashada salaadaha waajibka ah oo dadka jamaacaadka iyo ilaalinta salaada xilligeeda ay ku dadaalaan sidoo kalena aan badino nawaafisha salaadaha sunnooyinka maxaa yeelay salaadaha sunnooyinka waxay ka mid yihiin min afdal alqurubaat waxyaabaha ilaahay loogu dhawaado waxa ugu fadli badan bay ka mid yihiin waxa laga wariyay thawban radiyallahu anhu wuxuu yiri sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul waxaan maqlay buu rasuubanaha alayhi salatu wasalaam oo oranayo alayka bi kathrati as-sujudi lillah waxaan kula dardaarmahay qofyow badinta ilaahay inaad u sujuudo sujuudad ilaahay u sujuudaysa inaad badisaan kula dardaarmaya fa innaka maxayla adiga la tasjud lillahi sajdatan wama sujuudaysid ilaahay sujuud illa haday taas dhacdo rafa'aka ilayhi ilaahay xaqiisa ay kor ku qaadaysa biha daraja ay ilaahay xaqiisa kor ku qaadaysa wa hutta anka biha khati'a waxana lagaaga tiraya gaf ayaa lagaaga tiraya hadaadan gaf lahayn darajadii ayaa lagu laabaya muslim ayaa wariyay wa hada fi kulli waqtin bulayah waqti kasta loo baahan yahay inaad sujuuda badiso salaadaha waajibka lagu dadaalo qofkii aan salaadaha waajibka tukanin ilaahay inuu ka baqo oo salaadaha tukado qofkii tukanayana waqtigooda uu ilaaliyo haday u suurtoobaysana oo jamaacaadka ku tukado salaadaha nawaafishana laga wada faa'iideysto salaatu duhada iyo salaadaha ka dambeeya ma garanaysaa salaadaha waajibka ee maaratay sunnooyinka iyo salaatu leelka iyo wixii qofka uu awoodo qodobka labaad la doonay in laga faa'iideysto waa asiyam ilaahay subhanahu wa ta'ala dartii in loo soomo la afhaysto wuxuu leeyahay lidukhuli fi al-a'mal as-salihah lidukhulihi fi al-a'mal as-salihah wa galitaankiisa ka mid ahaanshihiisa soonka acmaasha wanaagsan wad garanaysaa oo nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri man saama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu baynahu wa bayna an-nar 70 kharifan qofki ilaahay dartii hal maalin u soomaa ilaahay asaga iyo wajigiisa wuxuu kala fogeynayaa 70 dayrood masaafo loo socdo soonka wuxuu kamid yahay waxyaabaha ilaahay loogu dhawaado subhanahu wa ta'ala واتونا حديث في صحيح اها كل عمل ابن ادم له الا الصوم والصوم لي وانا اجزي به عمل كسو ابن ادم كو قبط اسغا يا اسكله يعني ثوابته كدلنيسا لو شيغay waxaan soonka ka ahayn soonka aniga ayaa iskale wiir Allah aniga ayaana ka abaal marinaya adoonkayga ilaahay baa si gooni isu siiyay asoo acmaashadan uu leeyahay faan hunaydata ibn khalid an imraatihi saxaabigaas wuxuu ka wariyay haweeneydan ay ka warisay can bacdi azwaaj nabiy sallallahu alayhi wasallam kana nabiy sallallahu alayhi wasallam subhanahu wuxuu ahaa yasuumu 9 dhilhijja soomi jiray 9 maalmood ee u horeysa bishan soo socotay dhilhijja iyo yawma ashura iyo maalinta bisha ashura waa bisha muharram bisha koowaad maalintaasna nabiga kaleey salaatu uu soomi jiray maxaa yeelay 10 maalin u horeey walaalayaal maalinta 10aad waa ciidi maalinka ciidana in la soomo waa xaraam marka nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu ahaa bay tiri mid sooma ee 9 bari ee bishan u horeysa iyo maalinta ashura ee bisha muharram 3 ayaamin 3 maalmood oo min kulli shahrin bil walba ka ahaatay ayaamul biidka waa yawm 13 14 iyo 15 weeyaan Ahmed baa wariyay iyo Abu Daawud iyo Nisaa'i iyo غيركم Imam an-Nawawi wuxuu yiri can sawmi ayyam al-10 annahu mustahabbun istihbaban shadida soonka la soomayo 10 maalmood bishan u horeysay waa 9 maalinta 10aad waxaan ku niri waa ciide wuxuu leeyahay mid mustahab oo la wanaajistay wanaajintiisuna ay tahay mid aad u adag yani istihbaban shadidan qodobka saddexaad ee la doonayay in laga faa'iideysto waa at-takbir wa at-tahlil wa at-tahmid in Allah
الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله إلا بديه وقف كمان تقولون وكوع عليه. وحنا كسرنا هذا لما ورد في حديث ابن عمر السابق وحكسرنا هذا درت الحديث ابن عمر وريوها فأكثر من التهليل والتكبير والتحميد. وقال الإمام البخاري رحمه الله وحوي كان ابن عمر وحوها وأبو هريرة يا أبو هريرة رضي الله عنهما وحياهين يخرجان في السوق وأصبح سوق في أيام العشر مع المها طبنكة بشن يكبران أيوة تكبير سنة ويكبر الناس دتكنا ويتكبير سنجرين بتكبيرهما تكبير سنة ينبي لقى جرين لبوضة سوق يسوق بحجرين الله أكبر الله أكبر يكوه على العنجرين يا الحمد لله يا لا إله إلا الله دتكنا ويكذب أورنجرين. وقال أيضا سدوك الإمام البخاري وحيد وكان عمر روي وصحابي ويناء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة المسلمين يكبر في قبته وكل تكبير سنجري ماشي يراد أو لسنيد بمنا من أوجد أحد سنيد فيسمع أهل المسجد وحمقل جري أهل المسجد تتك مساجد كسجن فيكبرون مركز أيونا تكبير سنجرين تتك السوق كسجن أيجنا سيدو كلا تكبير سنجري حتى ترتج منا تكبيرا إلا أي إسلق الجلته وإسلط نواقض منا دن تكبير سيدو كلا وكان ابن عمر وحوها يكبر بمنا تلك الأيام مع المهاس منا أسوي كسجن أيو تكبير سنجري وخلف الصلوات صلاة قداشود وعلى فراشي حتى مركو جوجشي سكسجن يقولي سكسجن يبرتيس يماشى وصعد أسوق دن وتكبير سنجري تلك الأيام جميعا ما ضمان تود وتكبير سنجري وحانا وناكسن بيليهن والمستحب الجهر بالتكبير وحاول ناكسن إن كرلو قاد تكبيرته لفعل عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين سمعت وسمع عمر يويل كيسي أبا هريرة يسمعين ولا لا أنا مسلمين وحنا لا جدود إن النولين مع المحس سنة رسول صلى الله عليه وسلم عن نولين وأن كود ذال وأن مقرن إنسان إلهي سبحانه وتعالى أن ودوانا سيدو كلا وحكم إذا ولا لا وحيابها لدوني إن إلهي لو جدوا هذا صوم يوم عرفة صوم كلا صوم يوم أنت عرفة ما أنت صوم كذا ولا أتكي النبي عليه الصلاة والسلام حكسونا هذه أحتسب على الله إلهي وحنكر جينيا أن يكفر إن الغدافه السنة التي قبله سنة كسو كهريي هي والسنة التي بعده هي السنة كقدم بيو ولا للذنوب أي أدومها سمينيان الله بيسكو جرتها فهو كبيرة تنوى صغيرة لذا كبيرة ولا ليال وحيوبها أنت يتوبوا ين إلهي لون نقض سبحانه وتعالى شروط بين توبة اللي دحين أما صغيرة وحال غدافه أعماش وناكسن أدونك وسمين يصير صونك يا صلاةها يا قرآن آخرسك يا عباداتك وناكسن نبي عليه الصلاة والسلام مركب وحير وعن إلهي كرجينيا ونكفليا مركان إلهي وكرجي مرة نبي وجزمي برواية أخرى سير روايات كلا كتمت وحير وحال قد فيا نبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعن إلهي كرجينيا بويرين لو ضعفه ذنوب تأدومها أي سمينيان سنة كتكتي سنة كاس مقرن ساي وحي أخضاير وكدعي سلام كان لو ضعفه سنة كصوص صعدة رواه مسلم أحتسب على الله أن يكفر إن لو ضعف السنة التي قبله والسنة التي بعده وحلا الدنيا مرك ولا ليال إن خير كاس يوناقص أن كفايدي سنه قفك مسلم كوقفك عقل بدن وقفك وقت في كفايديسته وقفك أيامها يا خير كان كفايديسته وحلا سمينا عمل وناقصن أي إلهي أكتيس وهو ناقصن ولا ليال وحرك حن نفسدي نقدر دارميا إلهي عبسيدي سبحانه وتعالى إن مالمها خير كبدن أي نقص وجهان أن كفايديسنه oon soonno aysan ku dhaafin oo aad la socoto oo quraanka akhriso wixii aad awoodo ma garanaysaa takbiirta iyo taxmiidda iyo tahliil iyo waxyaabaha wanaagsan afkaada aysan ka bogin aan nafsadeena u dardaarmaya mar walba iyo mar labaad inaan noqono kuwii ka faa'iideysta ilaahay subhanahu wa ta'ala ana gaarsiiyo nabad iyo khayrna ha noogu dhameeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ha naga yeelo kuwii dunuubtooda lagu dhaafo sanadkii tagay iyo sanadka soo socdaba wa hada ma aqulu billahi tawfiiq wa sallallahu sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi